بسم الله الرحمن الرحيم. taariikhda carabta ayaa waxay qortaa in muddo 200 sano ka hor laga joogo ay maamulka ka jiray Soomaaliya ay u diri jirtay mucaawano iyo tabarucaad aad u fara badan dhulalka khaliijka ee maanta loo yaqaan Sacuudiya, Qatar, Imaaraadka, Bahrain, Kuwait, dhulalkaasoo waagaas ay soo wajaheen abaaro aad u qoto dheer oo ay dad badan dhibaatooyin ku gaareen. runtii Soomaaliya markii xaaladaas ku jirtay waxay qayb weyn ka ahayd ganacsigii weynaa ee loo yaqiinay Indian Ocean Trade Route oo yani ganacsi aad u xawli weyn. waxaa kaloo jiray taranka xoolaha oo aad u fara badnaa iyo beeraha wax soo saarkoodii oo wadanka ka badnaa wuxuu wadanku u baahnaa markaas, taasoo awood u siisay inay walaan. runtii taariikhdu waxaa la yiraahdaa waa isa soo celisaa. Soomaaliyana yani sharaftaas iyo karaamadaas ay hore u lahaan jirtay waa soo ceshan kartaa, laakiin waa in qof walba oo Soomaali ah uu isbeddel la yimaadaa oo Ilaahay tala saartaa. haddii aan u soo laabto dhinaca ganacsiga ay Soomaalida sharafteedii oo aad ugu sharafta badneyd, ganacsiga sidiisaba waa gaashaanka gobonnimada. nabigeennana allahumma salli wasallim calayh ganacsato wuu ahaa, wuuna ku dhiirigelin jiray dadka inay ganacsato noqdaan. tusaale ahaan markii ay Madiina soo galeen nabigeena allahumma salli wasallim calayh, Madiino dagaal sokeeye ka soo kabsatay, dagaalkii labadii beelood ee Oos iyo Khasraj ka dhaxeeyey. waxyaabaha ugu horreey uu sameeyey waxaa ka mid ahaa suuq ayuu u sameeyey. wuxuu yidhi suuqiina waa kana, cashuurna laydinkama rabo cashuur, maxaa yeele waxaa jiri jiray suuq ay yahuudda lahayd oo cashuur badan oo dadku curyaamisa jiray iyo ribo badan. marka wax yar kadibna runtii Madiina dhaqaalaheedii aad ayay u soo kabsatay, ganacsato badan oo saxaabada ka mid ah ayaa ku soo baxay. taasna waxaan fikrad ka qaadan karnaa inay canshuurta noqoto cashuur oo kooban oo yar oo ay dadka awoodaan. maxaa yeelay haddii cashuurta ganacsatada lagu kordhiyo, ayagana waxay ku kordhinayaan sicirka dadkii danyarta ahaa ee Soomaaliyeed. marka runtii dadka danyarta ahaan ayagoo cabiraya xanuunkoodii waxay ku leeyihiin adoo harsan waaye cashuur ma ku soo hirgashay. dhinaca cashuurta waxaa aad uga hadlay caalimka weynaa islaamiga ahaa Ibnu Khalduun ee ka soo shaqeeyey oo la soo shaqeeyey xukuumado badan oo islaami ah oo Andalus oo waagaas jiray iyo carabtaba. marka dhinaca cashuurta wuxuu yiri cashuurta markay yar tahay dakhliga dawladda aad ayuu u kordhaa muddo gaaban, laakiin cashuurta markay badan tahay muddo gaaban gudahoodii dakhliga oo dawladda aad ayuu u yaraadaa. sidoo kale cashuurta markay badato waxaa bato yiri kacdoonadii iyo oo dawladda lagu curyaaminayay. marka fakirkiisa Ibnu Khalduun waxaa aad u cajibgeliyey ama qaatay madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan oo ku akhristay buuggiisa muqaddimada ahaa asoo af Ingiriisi ah markuu kulliyadda dhiganayay. Ronald Reagan markuu madaxweynaha noqday waxyaabihii ugu horeeyey uu sameeyey waxaa ka mid ahaa cashuurta cariga Mareykanka ayuu aad u dhimay. muddo gaaban gudahoodna dhaqaalaha Mareykanka aad ayuu u kacay, dawladdana waxaa soo galay dakhli badan oo u suurageliyey inay kaga kormaraan dagaalkii qabowga, inay ku gacan sareeyaan oo ayaga iyo Ruushka ka dhaxeeyey. maxaa yeelay dawladdu waxay heshay lacag badan ay ku maalgeliyaan dhinaca hubka iyo wax walba ay ayaga u baahan yihiin. marka waxaa naga waana ah madaxdeena sharafta leh ee ku soo bartay reer galbeedka markay go'aan gaarayaan inay fiiriyaan dhinac walba, dhinaca diinta, dhinaca xeerka Soomaaliyeed ee xikmadda leh, marka si ay u gaaraan go'aan waxtar u leh dadkii. hadduu Ilaahay yiraahdo Soomaaliya runtii dhaqaalaha adduunka maanta wuxuu isugu soo biishumanayaa qaaradda Afrika. yacni dagaalka hadda jirana ma aha gacan ka hadal, dagaalka hadda jira waa ganacsi ka hadal, waa dagaal dhaqaale ah. marka waxaan awoodnaa ka Soomaali ahaan inaan ku gacan sareyno hadduu Ilaahay yiraahdo, laakiin waa Soomaali weyn oo isgacan qabatay marka hore. sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed yacni waa inay isgarab galaan ayaga ganacsato ahaan, sidoo kalena waa inay yacni u turaan ama u naxariistaan macaamiisha Soomaaliyeed dhinaca sicirka iyo tayada badeecadaha yacni ay keenayaan. sidoo kale sida hadda Ramadaankii ayaa soo dhow, inay ay sicir barar ku sameeyaan badeecadahooda ay ugu naxariistaan. nabigeennana wuxuu yidhi allahumma salli wasallim calayh, macnaa nin ganacsato ah ama qof ganacsato ah oo daacad ah
khiyaamada waxaa lala soo bixinayaa ambiyada iyo shuhadada iyo saadiqiinta macnaa waa ninka ganacsatada oo aaminka ah sidoo kalena dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku guubaaminaynaa ama ku dhiirigelinaynaa inay qayb ka noqdaan ganacsiga oo dalka ka jiro waxaan leenahay dhalinyaro ganacsiga looma dhasho dhaba loo maro ayaa jiro ganacsiga waa gunxirasho iyo gegsi badnaan ganacsiga waa gacanta sare nabigeenana wuxuu yiri yadul ulya khayr min yad sufla يعني ما أها دليل رهان إنا لحظة أبيه سانو أهاجري أبوه ساني أهاجري وإنا تهذا أني جنوائي كنا يعني سيد عرفت أي تراهدو ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من يقول ها أنا ودا مرك وحالي هذا ميل كم مخنو أما كم موخو وحنكون رجوينها إن شاء الله تعالى إن سومالي كسومالي أهان أن كم مخندون لخالها الدونك إن شاء الله تعالى gaar ahaan qarnigan oo ah qarnigii qaaradda Afrika ay mugdiga kaga bixisay waxaan Ilaahay ka baryeynaa in shumaci laga shidi lahaa qaaradda Afrika ee mugdiga loogu bixin lahaa in laga shido dalka Soomaaliya haduu Ilaahay yiraahdo maxaa yeelay dalka Soomaaliya waxay martay duruufaha ay marto diamondka ayaa markiisa hore wuxuu yahay dhuxul madow sida dab loogu wado oo loo jarjarayo ay mar un soo ifaa Soomaaliyana markaa fiiriso cadawga dibadda cadawga gudaha sida dab loogu waday loo jarjaray hadda waxaa la soo gaari doonaa markay soo ifaysa haduu Ilaahay yiraahdo iftiinkaasna qaaradda Afrika ay iftiimin doontaa laakiin waa mar ay Soomaali qalbiga isku furto oo qof walba Soomaali isbedel la yimaado inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim waxaan jeclahay inaan ka faa'iideysateen waa barnaamijkii horumar ummadaada oo idin soo gudbiyay walaalkiin Baazi Xaaji Busuri waxa kale isku soo dibiriday walaalkeen Axmed Amiin Xasan daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij taxana ah la socda YouTube-ka followna ku sameeya Facebook-ga daawasho wacan dhageysasho wacan khayr ayaa idin dhaafay waxaan ku kulmi doonaa barnaamij kale oo soo socda haduu Ilaahay yiraahdo jazaakumullahu khayran